Assalaamu calaykum akhyaarta sharafta leh waa Som Crypto oo mar kale idiin soo gudbinaya barnaamijyadii xiisaha lahaa ee aad uga barateen. Maantana waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena cudurka loo yaqaano COVID-19 ama cudurka caabuqa aan u naqaano oo dunida hadda ay la il daran tahay. Sida aad u aragtaanba maapkan waa maapka adduunyada oo dhan. Wadamada kalarka uu ku badan yahay oo buluuga zaa'idka ah waa wadamada aadka oo hadda ula il daran ama aadka u haayo. Halkan waa Mareykanka ama sida u taqaan United States, kan waa Ireland, kan waa Norway, halkan ayaan ku noolahay, kan waa Talyaaniga, kanna waa Spain. Wadamada oo sida xun u saameeya waa especially Spain iyo Talyaaniga ayuu hadda aad u haya. Mareykankana iyadana aad iyo aad ayaa looga cabsi qabaa. Marka haddii aan usii guda galno cadeymahayni iyo sida aan ku ogaado cudurkan cudur laga dambeeyey inuu yahay oo waxaan qorshe la diyaariyey oo yahay sida aad arkaysaanba waxaan idin tusi doonaa video ama documentary ama film laga sameeyey 11 sano ka hor lasoo saaray ayaa wax walba ay ku cad yihiin wax walba oo maanta taagan oo maanta waxaana la yiri yaan la istaabanin, yaan la isi salaamin, yaan la isku soo dhawaanin, yaan meel wada fariisanin. waxaasoo dhan iyada oo tafatiran ayaa laga sameeyey film. Sheekada hadda maanta jirto weli taas waxaa kaaga sii daran ninka filimka interviewga ka qaadaya ninka takhtarka ah waa ninka maanta ay CNN-ka ka weydiiyeysa arrimahaas oo ka turjumaani doono oo faahfaahin ka bixi doono. waa 11 sano ka hor ninkii ka bixinayay filimka faahfaahinta ayaa maantana CNN la keenay oo ka bixinaya faahfaahintii. Haddana waxaan idin tusi doonaa filimka laga sameeyey iyo sababta looga sameeyey. daawasho waxaan qaybta sharafta. The drug ribavirin has been shown to be effective against this virus. Yet, Homeland Security is telling the CDC not to make any announcements until stockpiles of the drug can be secured. Well, Dr. Gupta, there continue to be evaluations of several drugs. Ribavirin is among them. But right now, our best defense has been social distancing. No handshaking, staying home when you're sick, washing your hands frequently. Let me bring in Alan Crumwoody into this debate as well. Alan's a freelance journalist. He was the first. Sida arkaysiinba ninka weydiiyey interviewga ama ninka interview ka qaadaya ninka takhtarka ah oo dhahayo yaanan la istaabanin ama la isku soo dhawaanin. ninka madow wuxuu leeyahay social distance inaan la istaabanin ama la isku soo dhawaanin ayuu leeyahay. ninka interview ka qaadayay waa kana ninkan waxaa la yidhahdaa Sanjay Gupta la yidhahdaa. wuxuu u shaqeeyaa CNN-ka waana nin American neurosurgeon ah. waa arkaysiin macluumaadkiisa oo dhan waa ninka ka qaadayo maaragtay interviewga ama weydiinayo su-aasha ninka madow. sida aad arkaysaanba filimkanna oo aad soo fiirsateen waxaa la yidhaha Contagious. magaciisa waa kan waxaa la sameeyey 2011 ayaa la sameeyey. ninka su-aasha la weydiiyey waa kana actorka su-aasha la weydiiyey waa kaasaa. filimka wuxuu ku saabsan yahay waa kana 2011 ayaa la sameeyey. taariikhda maaja aan joognana waa 9 sano ayaa ka soo wareegatay. marka waa arkaysaan waxaan wax oo ma ahan layska yacni layska dhigi karo ama lama la awaali karo. ninka su-aasha weydiiyey waa kan. ninka uu su-aasha weydiiyeyna waa actorkan oo su-aasha la weydiiyey. magaciisa haddii aan raadina halkan kuma jiro laakiin waa helaynaa. waa kana ninka su-aasha la weydiiyey. ninkan actorkan ayuu ahaa ninka su-aasha la weydiiyey. marka haddana waxaa idin tusi doonaa ninkan asaga oo laga weydiinayo cudurka coronavirus haddeertaan laga weydiinayo CNN-ka ayaan idin tusi doonaa. daawasho waxaan khiyaarta sharafta leh. We're all in this together, and I think that the narrative, the message I think a lot of people have been hearing is, look, it's not that bad. It's just another flu. Most young, healthy people are going to be just fine. Maybe they haven't really been paying attention to some of these other countries around the world that have been hard hit. Maybe they don't fully realize that they can still transmit this virus and make somebody, you know, a family member, somebody they love, or a total stranger sick from this still. This is a virus. It's, I think, unlike anything that maybe many people in their lifetime. aragteenba
dhakhtarkii la weydiiyey wuxuu ahaa dhakhtarkii aad filimka kusoo daawateen magaalada oo cudurkan ka dilaacay oo markiisa hore oo ka dilaacanay China ayaa iyadana baaritaan ku sameeyey waxaanan soo ogaaday inay ahayd magaalooyinka ugu wax soo saarka badan ama ugu horumarka badan waddanka China. Wuhan ayaa la yidhahdaa waa magaalo laakiin gobol ahaan Hubei ayaa la yidhahdaa. Marka GDP-ga magaaladaas keliya China oo dhan marka la isku daro China adiga 6.5 ayuu sanadkii kor u kacay GDP-gooda. Magaaladaas keliya ayaa waxaa la ogaaday in GDP-ga oo 4 ilaa 3% keliya uu ka imaanayo markii guud ahaan la isku daray China. Marka aniga ma garanayo hadafka ay ka leeyihiin laakiin meeshan waxaa ka arkaysaa in ay reer galbeedka dhibaato ku tahay inay China horumar gaarto ama meel sare ay gaarto. Waxaana la ogaaday 2 ilaa 3 bil keliya haddii uu saameeyo China wuxuu la haraa 10 sano ayuu dhaqaalahooda dib u la haraa. Micnaheedu waxaa waaye waddankaas horumarka uu sameyn lahay ma ka soo kabsanaya 10 sano oo hadda dhiman. Marka koley nimankan reer galbeedka ma la fahmo waxay sameynayaan. Koley Soomaalida been ma mahmaahdo, been way sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo. Waxaa la yidhi caqli gaalo iyo indho quraanshaba lama arko. Marka koley ma og aniga waxay dan ka leeyihiin laakiin wax walba halkan ayay ku cad yihiin sida aan idiin soo sheegay. Suuqa caalamkana haddii aan fiirinana oo saakay markii aan soo kacay suuqa caalamka aan fiiriyey suuqa caalamka waa arkaysiin 4% ayuu hoos u dhacay kan Russia Britain wadamadii oo dhan waa kuwana. Marka lagu leeyahay 4% iyo 3% waxaa waa waddankaas dhaqaalihiisa waa micnaheeda adoo $100 haystay oo 3% ama 4% ay ka dhinto waa $30 iyadoo ka dhintay. Marka waddanka oo dhan hadduu 100 bilyan nahay 30 bilyan ka lumayso. Marka kanoo kale hadda France oo arkaysiin 4 ayuu hoos u dhacay dhaqaalihii waddanka oo dhan. Spain wadamadii reer galbeedka oo dhan way yaaban yihiin. Marka ma garanayo laakiin ilaahay ha naga qabto gaaladan shartooda. Sida arkaysiina waxaa ku soo aragteen in wax walba ay ku socdaan maaragtay sida ay rabeen inkastoo wax walba oo ilaahay keeno haddana aniga waxay ila tahay inay reer galbeedka muhiimadda danta ay leeyihiin ay tahay inay soo saaraan vaccine daawo tallaal ah oo lagu ogaado qof walba oo adduunyada oo joogto. Jahad dadka waa la cabsiyey daawo la soo saaro daawada marka la soo saaro daawada waxaa la gelinayaa qofka waxaa la gelinayaa bahal yar sim card yar waxaa laga gelinayaa gacanta. Sweden waa lagu bilaaba hadeertan. Sweden dadka chip ayaa la geliyaa oo 2500 xataa tareenka Sweden ma u baahnid inaad raacid maaragtay ma u baahnid inaad raacid ticket ma u baahnid. Bahal yar oo gacanta kaaga jira gacanta laga geliyay oo chip ah ayaad isticmaalaysaa asagana waa kana videogiisa daawasho wacan laakiin muhiimadda ay ka leeyihiin waxaa waaye inay adduunyada kontroolaan ee wax walba gacantooda ku jiraan reer galbeedka. Waana aragnay China markuu dhaqaalaheeda kor u soo kacay waxay keentay inay la loolanto Mareykanka ama ay ku afceliso ama ay wixii rabto samayso ee Afrika iyo meelahaas iyo horumar gaarsiiso. Marka dadkana waxaas ma rabaan waxa ay sameeyeen caddeynteedina watas waa tusay waana arkaysiin dadkii wax macluumaad oo intaas ka badan fahansanaha ay soo gudbiyaan ama analooda soo wada wadaagaan laakiin waa waxa ay gaaladan ka dambeeyeen. Ilaahayna ha naga qabto gaaladan. Haddana videoga waxaa tusay Sweden in lagu bilaabo dadkii in la geliyo gacmahooda wax oo qofka maba u baahno baasaboor uma baahno furo oo guri ku galo uma baahno kar bas uma baahno uma baahno banki kar wax walba gacanta ugu jiraan gacanta laga geliyay. Videogina waa kana daawasho wacan asna. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID and he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. You like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly.
let's buy some snacks. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip, and it will log me in, and from there I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. Install ingrain procedure with local anesthetic and you're good to go. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contact with sida aad soo daawateenba waa arkayseen haddii aad doontaanna inaad macluumaad kale ka sii heshaanna iyadana waxaad taabanaysaan waxaad ku qoraysaan youtube-ka waa kana halkaas waxaad ku qoraysaa Sweden sees microchip ayaad ku qoraysaa Aljazeera ayaana ka duubtay waxaana laga sameeyey 21 February 2019 ayaa laga sameeyey Sweden inay dadka la gelinayo chip la gelinayo marka teknolojiyada waa la diyaariyey marka hadda sida ay damacsan yihiin oo aniga aan isleeyahay waxay damacsan yihiin inay soo saaraan daawo talaal ah talaalkana qofka waa lagu talaala la yiraahdo bahalkana la geliyo bahalka marka la geliyo qof walba meeshuu aado meeshuu cuno wuxuu cuno dhiiggiisa wax walba lala socday xaaladiisa marka waxaana waa wax ay qorsheeyeen ilaahina galadaan shartooda hana mootiyo marka khiyaarta sharafta insha Allah isarag dambe oo xiiso leh waxaan idin soo gudbin doonaa fiidiyoyaal kuwa maaragtay ka lamid ah ama kuwa ka sii fiican mar walba wax video inaan soo geliyo wax qiimo ama sameynayso laakiin wax muhiim ah haddii aan arko kalento inaan idin la soo wadaago ama xaalada muhiim ah ayaan maaragtay qorshaystay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu